wasiirka wasaaradda caafimaadka mudane aadan ducaale ayaa maanta ka soo hormuuqday guddiga sharci dejinta ee golaha shacabka uu gudoomiye u yahay xildhibaanka Enabkoi Honorable Samuel Chepkonga si oogala hadlo xeerarka caymiska caafimaadka bulshada ogeysiis sharci nambarka 56/2025 intii ay socdeen wada hadalladu ayaa mudane ducaale waxa uu bixiyay warbixin dhameystiran oo ku saabsan baaxadda adeegyada lagu isticmaalo qaab dhismeedka tacriifada isagoo ku qotomay saddexda dhaqaale ee muhiimka ah ee caafimaadka ee lagu dhisay maamulka caafimaadka bulshada. sanduuqa daryeelka caafimaadka aasaasiga ah waxay taageertaa helitaanka ka hortagga iyo adeegyada daryeelka caafimaadka aasaasiga ah iyada oo diiradda la saaraya waxqabadyada heerarka bulshada, ka hortagga cudurrada iyo waxbarashada caafimaadka. sanduuqa caymiska caafimaadka bulshada waxa uu bixiyaa caymiska adeegyada caafimaadka ee muhiimka ah, baltimaameedka joogtada ah iyo daaweynta lagama maarmaanka ah si loo hubiyo in xubnaha ay helaan daryeel caafimaad oo dhammaystiran. sanduuqa cudurrada degdega ah iyo kuwa daba dheeraada ee halista ah waxay bixisaa ilaalinta maaliyadeed ee qarash badan iyo baahiyaha caafimaadka degdega ah oo ay ku jiraan daryeelka muddada dheer iyo kuwa gaarka ah. wasiirka waxaa kale uu sharaxay isticmaalka habka tijaabada ah inta lagu jiro diiwaangelinta SHA si loo go'aamiyo u qalmitaanka taageerida dowladda ee ku saleysan dakhliga iyo hantida. waxa uu iftiimiyey hindisaha Lipa SHA Polepole, qaab wax ku biirin ku saleysan iyo qorsheynta isbeddelka bil kasta ilaa wareegyada lacag bixinta sanadlaha ah si kor loogu qaado dabacsanaanta iyo hoggaansanaanta. mudane ducaale waxa uu xaqiijiyey sidii ay wasaaraddu uga go'an tahay maamul wanaagga, hufnaanta iyo ka qaybgalka xooggan ee dadweynaha ee saameynta agabka sharciga ah iyadoo la raacayo xeerka agabka sharciga CAP 2A. wasiirka ayaa waxaa kulankani ku wehelinayay xogayaha guud ee adeegyada caafimaadka Dr. Uma Oluga, agaasimaha guud ee caafimaadka Dr. Patrick Amoth iyo madaxa maamulka caafimaadka bulshada Dr. Mercy Mwangangi.